diyaaradaha casriga ee Turkiga ee Soomaaliya u soo diray ee F-16 iyo diyaaradaha kale ee attack liiraahdo ayaa waxay bilaabeen howlgallo caalami ah oo ay ka sameeyaan dhanka hawada Soomaaliya. diyaaradahan ayaa eriyaday diyaarado la sheegay in ay leeyihiin dalal doonayay in hawada Soomaaliya ku soo xadgudbaan sida Imaaraadka oo kale, kuwaas oo doonayay in ay hawada Soomaaliya soo galaan sida ay doonaan ay ka sameystaan. laakiin dowladda Turkiga oo horey u soo qaatay qalab casri ah looguna talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqyada guud ee dhanka hawada ayaa durba bilowday in ay diyaaradaheeda si gaar ah ay u eryadaan diyaaradahaasi kale, kuwaas oo ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay lana filayo in laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta sida gaarka ah diyaaradaha militariga iyo kuwa kale loogu talagalay in lagu ganaaxo sida ay sheegeen ila kala duwan. warbaahinta Xuraansi ayaa dabagal ku sameysay xogahan iyadoona ay la hadashay saraakiil kala duwan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyo qorsho waaweyn oo ay ku doonayso inay ku burburiso shabakado kala duwan. Imaaraadka, Israa'iil iyo xubno kale ka mid yihiin kuwaas oo doonaya in la dhaqaajiyo howlgallada guud ee la xiriira in ay Soomaaliya isku dayaan qaabka ay u curyaami karaan. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo tagay Sacuudiga ayaa sheegay in dowladiisa ay u hagar baxday dhanka Soomaaliya, sidaas awgeedna loo baahan yahay in la xoojiyo isbahaysiga guud ee Soomaaliya lagu difaacayo si looga hortago isku dayada kala duwan ay wadaan dowladaha kala duwan ee Imaaraadka ay ka mid yihiin, kuwaas oo doonaya inay hagardaamayaan dhinaca Soomaaliya sida ay sheegeen ila waradidaasi. xubnahan ayaa sidoo kale waxay carabka ku dhufteen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen kulamo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, iyadoona mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan la sheegay inay u ambabaxayaan waddanka Sacuudi Carabiya, halkaas oo ka dhici doono shir weyn loogu talagalay in lagu garab istaago. Mareykanka oo arrintaasi ka carooday ayaa markaan waxa uu bilaabay in uu hubgeeyo furimaha hore ee dagaalka ciidamada dowladda ay ku howlgalayaan, laakiin waxaa arrintaasi dabagal ku sameeyay qubar iyo saraakiil u dhashay waddanka Turkiga si ay u hubiyaan hubkaasi inuu yahay mid dheemisha oo aan waxba tarin iyo inuu yahay mid waxtar u leh ciidanka Soomaaliya. ugu dambeynse waa la xaqiijiyay hubkaas sida ay sheegeen saraakiil iyo ilo kala duwan oo dhanka sirdoonka ah. warbaahinta Xuraansi waxay dabagal ku sameysay sidoo kale dhaqdhaqaaqyada guud ee socda. dowladda Turkiga ayaa dhanka badda waxay ka bilowday howlgalkii casriga ah ee loogu talagalay in lagu xaqiijiyo dhanka amniga badda, kaas oo ujeedkiisu yahay in la gaaro gunta hoose ee soo saarka shidaalka Soomaaliya oo nacfi iyo faa'iido weyn Soomaaliya u leh. xaruntii dayax-gacmeedka saldhigga militariga Turkiga iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada guud ee Ankara ay ka wado dhanka Muqdisho waa waxyaabaha inta badan indhaha caalamka soo jeedinaya, taasoo ka dhigaysa in xukuumadda Soomaaliya durba ay cagta saartay dhabihii isbeddelka ah ee dhanka militariga. Turkiga Soomaaliya waxaa ka jooga hadda ciidan badeed oo ilaalinaya dhanka xuduudaha, maraakiib si hordhaca u jooga kuwaas oo ilaalin doona ama ka qayb qaadan doona qorshaha lagu soo saarayo shidaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa jira diyaaradaha casriga ee Turkiga oo meel ka baxsan dalkiisa meeshii ugu horeysay la geeyay Soomaaliya ka dhigay, isagoona ugu talagalay in diyaaradahaasi ay kordhiyaan howlgallada guud ay ka wadaan dhinaca Soomaaliya. waxaa intaasi dheer in ay gudaha Soomaaliya ay joogaan saraakiil iyo khubaro sare u dhashay waddanka Turkiga, kuwaas oo wada dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka sugidda amniga, iyadoona dhowaan la soo shaaci doono ku dhawaad 6,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya. ciidamadaasi waxay qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga, iyagoo la howlgali doona ciidamada kale ee loogu talagalay in amniga guud ee Soomaaliya mas'uuliyad weyn ay iska saaraan sida ay sheegeen ila kala duwan. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo. waad ku maasan tahay daawashadii la socodka janaalkayga.